وأنا قم هاد علينا وزير كرنت إسلام مركان وشاقي ونكويري وزير وقت قاعد ما نيسو دقيقة مساعدك بعد أرض الصومالية دا برنامج كسودة معنا حنجعلان لهن إن تكسو غيب قشو أنت without hesitation وأقبل وحن رجينا دمانتين وابتين إننا مثقفين هاتان ضد بدنا سو صارتان دكو كاننا كلي أكاديميك sidoo kalena insha Allah warkeen uu noo dambeey doonay dhalinyarada badan ee fadhi ku dirarka aan macnaha lahayn fadhiyana inaad si barnaamijyada noocaan u badisaan si uga faa'iidaan marka maskaxdana aad aan tashiilino aan ka shaqeyno wanaaga iyo mataqaa iskueenada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyo midnimadiina halkaan si midnimada xaq u xoogsato wadanka Soomaaliya wax walba u tiri kartiin u tara qalinka ugu hiiliya waa idin garab taaganahay insha Allah ardayda Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan oo tirin aan u furnay oo laba cisho socday طبعا waxyaabaha aanu aad iyo aad ka focus ka saarayna waxa kamid aha in qofka Soomaaliyeed ama ardayga Soomaaliyeed uu barto sida wax loo qoro oo ku dhiirado qoraalka waa mid labaad waxyaabaha aanu aad iyo aad ka focus ka saarayna waxa kamid ah in qofku problemka uu mataqaana ama mushkiladaha Soomaaliya ama Afrika ba haysta uu qofku ku xalliyo qaab qoraaleed uu ku muujinayo qaab qoraala uu ku muujinayo si uu mataqaana ula wadaago ummadaha isaga oo qoraal iyo ku muujinaya xalkii iyo problemka sidoo haba ku muujinaya waxyaabaha aad ka aan focus ka saarayna waxa kamid ahaa in mataqaana ardaygu amba uu qofka Soomaaliyeed uu ku dhiirado si uu u abuuro sheekooyin si uu u abuuro mataqaana wax curin si uu u abuuro inuu wax hirgeliyo si uu u abuuro inuu wax meel mariyo si uu ugu muujiyo qoraal iyo akhri